mararka qaar qofka bini'aadinka ah waxa uu la kulmaa wax aan la garan karin. waxaa jira dad sheega in ay qabteen jini, qaarna waxa ay sheegaan in ay riyo ku arkeen jini, ayna maqlaan codad ama xitaa ay arkaan jirkooda oo gubanaya iyaga oo hurdaaya. laakiin maanta sheekadan waa mid dhab ah oo laga diiwaangeliyey magaalada Burco, waana qisada Fartuun, gabar Soomaaliyeed oo nolosheeda ay bedeleen jiniyo lagu soo diray. haddaba ma aaminsan tahay adiga in ay jiraan jiniyada? Fartuun waa gabar 20 jir oo ahayd arday jaamacad Burco ku taala dhigata, waxayna ahayd qof firfircoon oo xiiseeya nolosha caadiga, isla markaana dad badan ay jecel yihiin. qoyskeedana waa dad diin leh. hooyadeed waxa ay macallimad ka ahayd iskuul, laakiin nolosha Fartuun waxa ay isbedeshay hal habeenada ka mid ah. Fartuun waxay ka soo laabatay waxbarashadeeda ayadoo daalan. waxa ay seexatay iyadoo aanan wax dhibaato ah dareemeynin, laakiin habeenkaasi ayada oo hurdeysa ayay si lama filaan ah hal mar u soo toostay ayadoo neefsan la. waxay dareentay in uu qof ceejinayo, dhabarkana lagaga fadhiyo. Fartuun waxa ay bilowday in ay qeeliso, isla markaasina hooyadeed ayaa u soo oroday. laakiin markii ay hooyadeed qolka soo gashay, Fartuun waxa ay ahayd mid si caadi ah sariirta ugu jiifto. markay soo fariisatay Fartuun waxa ay tiri, hooyo, qof ayaa igu fadhiyay, afkana iga qabtay, wejigiisana waan arki waayay. talow haddaba ma jini buu ahaa? ha cabsanin, sheekada aan kuu wadee. Fartuun qofna ma rumaysan hadalkeeda. laga bilaabo habeenkaasina Fartuun waxa ay bilowday waxyaabo la yaab leh. waxay maqashaa codad magaceeda ugu yeerayo, waxay arki jirtay wejiyo badan oo ka soo horbaxaya. mararka qaarna si kadis ayay iskaga ooyin jirtay ayadoo iska warheenin Fartuun. qoyskeeda waxa ay u qaateen in ay la xanuunsan tahay gabadhooda, xanuun iska caadi ah, waxbarashadana ay diidan tahay. waxay geeyeen isbitaallo badan oo kala duwan, baaritaano badanna waa loo sameeyey, daawooyin ayaana la siin jiray, laakiin waxba kama bedeli jirin daawooyinkaasi Fartuun. waxa ugu la yaabka badan ayaa ah, waxaa dhacday habeen qoyskeeda in ay u keenaan wadaad macallin dugsi ah si uu qur'aan u saaro. markii qur'aanku uu ku bilaabay Fartuunna waa ay isbedeshay, codkeediina waa uu isbedelay, indhaheediina waa ay gaduuteen. waxay cod weyn ah ku tiri, aniga ma ahi Fartuun, waa la isoo qasbay in aan halkaan imaadana ma rabin, mana bixi karo, qof ayaa isoo qasbay. waxaan iska dhigayaa codka ninka jinka. wadaadkii waa uu iska istaagay, wuxuuna bilaabay in uu sii aqriyo qur'aanka. laakiin wax yar kadib Fartuun waxa ay bilowday in ay ku qeyliso cod kale ayadoo leh, markaan ayaa igu dambeyso, aniga ma rabo gabadhani. macallinkii waxa uu sheegay in uu la hadlay, uuna yahay waxa Fartuun dhibayo jini. jinkaasina uu sheegay in nin ay qaraabo yihiin Fartuun uu soo adeegsaday, isagoo rabay Fartuun in uu shukaansado, guurna ka rabay, ayadana ay ka diiday shukaansigii iyo guurkaba. kadib markay xaqiiqdaas ogaadeen, qoyska Fartuun waxa ay bilaabeen in ay ruqyo joogto ah saaraan gabadhooda, waxaana loo geyn jiray wadaadyo badan oo kala duwan. mararka qaar waa ay wanaagsanaan jirtay Fartuun, mararka qaarna waxa ku soo laaban jireen jiniyadii oo waa ay xanuunsan jirtay. waxa ugu la yaabka badan ayaa ah in maalin maalmaha ka mid ah uu wadaad qaraabo la ah Fartuun u yimid qoyskeeda, isagoo ku leh, waa in aad iska kay cafisaan haddii aan qalad idin geystay. qoyskii waa ay yaabeen, laakiin gadaal dambe waxa ay fahmeen in uu yahay ninkii u soo adeegsaday jiniyada Fartuun, waa ayna iska cafiyeen. laakiin maxaa xigay? Fartuun hadda waa 24 jir, xaaladeedna waa ay iska hagaagtay, laakiin weli ma seexan karto ayadoo keligeed ah. maalmo waa ay iska wanaagsan tahay, maalmana waa ay xanuunsan tahay. qisadeedana dadku waxa ay ku noqotay mid la yaab leh. dadka qaar waa ay rumaysteen, waa ayna u naxeen, walow dadka qaarna aysan rumaysan. haddaba talo maxaan idin siinayaa? waxaan idinkula talinayaa in aad mar walba alle ku xirnaataan, aadna akhrisaan qur'aanka, aadna dhowrtaan salaadaha faralka ah. waayo Fartuun nolosha waa loo diiday, oo qof maanta hadduu fiicnaado beri xanuunsanayo ayaa laga dhigay. si aad midaas uga hortagtana, waxa kaliya kuu furan waa in wadada alle aad kaga hortagto. haddaba ma isleedahay waa uu jiraa jinka, mise waa wax mala awaal ah? haddii aad halkan inala soo gaartay, isku day inaad muuqaalka like gareyso, aadna u dirto asxaabtaada.